السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيرتني شرفت له إكو حرن كنال كينا مبارا في إنجليش وحيدين لحظة يعني زكريا محمد عشر كيني مانتا وعشر كيني كو إتبانات قيبتي سلابات ويلي وحيد أحد كغسي جرنا auxiliary verbs إن عشر كان أنت نقول قالين الفضل هذا كو عصبت هاي دب أقول لابو إن عشر كيني هوري ساد ولا سو قبستيد هل كان أصول قارتي أما أنت تاجن هاي sidoo kale ha ilaawin inaad subscribe share like aad saartid si aniga inoo noqdo dhiirigelin aadna aad uga faa'iido cashirada aan soo gelino mahadsanid sidaan soo sheegayba cashirkeeni maanta wuxuu dhexda kaga jiraa ama weli uu daba taagan yahay cashirkeen hore oo ku saabsanaa auxiliary verb af Soomaali ahaan waxaa lagu dhahaa niri falkaaliye auxiliary waa kaaliye verbna waa fal marka the auxiliary verb falkaaliyaha did topigan maanta did uu ku saabsan yahay is used waxaa la isticmaalaa when we are talking about markaan ka hadleyno in the past fal tagay and it usually goes caadiyanna waxay qaadataa with the main verbka ama falka oo main verbka v1 loo yaqaano oo ka hadlayo ficil hadda taagan haddaan si kale u dhigo waa present simple tense falalka aan isticmaali lahayn uu qaadanayo did baa soo hormarayso waxaa kasoo dib dhacayo main verb oo v1 mar walba v1 isticmaalaysa insha Allah main verb ayada faahfaahsan insha Allah waa gaarina marka v1 waxaan ka wado cashirkaana ku barnaynaa tusaalooyin qaar ka mid ah cashirkeena wuxuu ku saabsanaa do iyo does laba koox kala qaadanaysay do iyo does kooxda do qaadanayeen waxay ahaayeen I aniga you adiga ama adinka we anaga they iyaga afartaas waxay qaadanayeen do qaybtan kale ayadana waxaa ku haysanaa he asaga she iyada iyo it asaga ama iyada oo la jeedo xayawaanaadka iyo sheeyaasha markaan tilmaamayno ayagana waxay qaadanayeen does marka topigeena maanta wuxuu ku saabsan yahay soo sheegay did marka do iyo does fal tagay markay naqdaan waxay isugu imaadaan did waxaa filaa intaan inaad fahanteen qaybtan waxaan ku haysanaa auxiliary verb formulas ama haddaan si kale u dhigo Soomaali ahaan naqanayso falkaaliyaasha qaacidadooda auxiliary verb formulas falkaaliyaasha qaacidadooda qaacidooyinka waxaan soo diyaariyay saddex qaybood oo mid ay tahay diidmo labada ka midana ay su'aal yihiin marka qaabka isticmaal insha Allah waa baranaynaa midda muxuu ahaa diidmada dan ku bilaabo waxa uu soo horeeyo subject uu soo horeeyo waxa ku soo xigo did oo ah auxiliary verb oo fal tagay aan si raacsiino ama aan ku dareyno note oo didmadii ahayd kadib main verb ama v1 oo macnaheedu ay tahay fal hadda taagan oo sidoo kale aan ku sii darsanayno rest of the sentence jumlada qeybaheedii kale marka rest of the sentence waxa uu soo qoray sida qeybahan oo kale isugu soo dardari kariyo qofka wuxuu isticmaalaya ku xiran tahay ama wuxuu ka hadlayo markay badan yihiin halka inoo maday qisman ku soo koobi karno laakiin afartan ay inoo muujinayso ama inoo fududeynayso inaan fahanno waxa laga hadlayo qaybta labaad oo su'aasha ah questions ayadana waxaan u soo hormariyay ama ugu soo horeeyo did oo ah auxiliary verb marka haddaad xasuusato cashirka hore auxiliary verb haddii jumlada ay ka bilaabanayso ama su'aasha ay ku saabsan tahay auxiliary verb jawaabahooda wuxuu noqonayaa yes or no okay did aan ku bilownay waxaan ku xijinay subject waxaan sii raacsiisnay main verb oo ah fal hadda taagan ama v1 kadib jumlada qeybaheedii kale aan sii raacsiinayno su'aal marka subject waxa ula jeedaa mawduuca waxa uu ku saabsan yahay ama qofka uu ku saabsan yahay mawduuca ama uu ka hadlayo ama topiga laga hadlayo waxa uu ku saabsan yahay ama laga hadlayo subject la dhahaa marka qaybtan hoos ayadana waxaan ku haysanaa wh aan ula jeedo question words marka midaan yes or no laga baahnay waxa u baahan tahay faahfaahin ama sababeyn waa barnayna insha Allah wh waxaan ka wado oo question words aan ku tilmaamay kadib waxaan ku darsanaynaa did waxaan ku sii daraynaa subject kadib main verb ama v1 fal hadda taagan kadib jumlada qeybaheedii kale anagu ku sii dhameystirayna calaamad su'aal waxa filaa qaybtan inaan isla fahanay marka waa kuwan waxaan ka wado question words waa kuwan question words markii qaar ka mid ayaan soo baranay rajayna cashiradeenii hore ee ku jiraan
midda koowaad question words oo WH aan ka wado waxaa ka mid ah who WH ka bilato soo maaragtid who W waa silent laguma dhawaaqayo who macnaheedu waxay tahay kuma ama waayo what maxay which kee ama midkee where xagee when goorma how much imisa ama how many meeqo ama meeqa xabad tira la isweydiinaya how many marka subject waxaan ka wadaa waa inay xasuusinaya asagana I you we they she iyo it waa isla soconaa saajinayo haddaan ku bilaabo tusaalaha koowaad waxayna leedahay did you ride your bike to work miyaad u kaxaysay baaskiilkaaga shaqada ama miyaad shaqada ku aaday baaskiilkaada si kale u dhigo marka ereygan did waa fal tagay laakiin main verbka oo ah ride wuxuu ahaanayaa fal hadda taagan ama V1 okay did you ride your bike to work miyaad u kaxaysay baaskiilkaaga shaqada tusaalaha labaadna iyadu waxay leedahay did they arrive on time miyay ku yimaadeen waqtigii loogu talagalay ama waqtigii lagu balansanaa miyay ku yimaadeen marka did waa fal tagay jumlada fal tagay weli ka hadlaysaa topigeena maanta oo dhan wuxuu ka hadlayaa fal tagay okay did maadaama isticmaalnay arrive wuxuu noqonayaa marka fal hadda taagan ama V1 uu ahaanayaa marka they waa subject xasuusnow topic ayagu ka hadlayaa ayaga ma ku yimaadeen waqtigii loogu talagalay saddexaad we didn't sleep well last night marka didn't waxaa laga soo gaabiyey did not laga soo gaabiyey we didn't sleep well last night xalay si fiican uma seexan we waa anaga xasuusnow ayagu ku socdaa topiga waa subject xalay anaga ama xalay si fiican uma seexan number 4 I didn't want to go to the dentist ma aanan dooneynin inaan aado dhakhtarka ilkaha I didn't want to go to the dentist didn't waa auxiliary verb oo past ah waxa la soo dhaafay ama fal tagay laakiin main verbkiisu wuxuu ahaanayaa V1 oo ah want number 5 mid shanaad I didn't say anything waxba maan dhihin I didn't say anything say waa dhihid didn't waa did not la soo gaabiyey marka didn't maadaama past ay tahay oo fal tagay aan ka hadleyno main verbka weli waa say oo ah V1 oo hadda taagan waxaan rajaynaynaa isla soconno ayadana cashirka maanta kii hore uu ka fududeysa filayo midda lixaad waxayna leedahay where did they learn English before xagee ingiriis ku barteen ayaga ama xagee ku barteen luqadda Englishka ama ingiriiska where did they learn English before where waa question word did oo ah past oo do wax la soo dhaafay ah marka main verbka wuxuu ahaanayaa learn oo ah fal hadda taagan ama verbka originalkiisa uu ahaanayaa learn asagoo waxba iska bedelin where did they learn English before xagee ingiriis ku barteen ayaga toddobaad ama number 7 what did we do maxaan sameynay marka waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid ereygan did do ahaan aan kusoo barno asoo auxiliary do an kale meesha ka sameynayaa okay hadda idin sharxaya marka ereygan do ama did oo fal tagay do waa mid hadda taagan ama V1 ah
marka do ereygan laba qaybood loo isticmaalaa. qaybna waxaa loo isticmaalaa asagoo ah auxiliary verb oo qaab su'aaleed aan ku weydiinayno ama diidmo aan ku samaynayno, ama diidmo hadda taagan ha ahaato ama diidmo wax la soo dhaafay ama fal tagay ha ahaado. sidoo kale wuxuu ahaanaya asaga laftirkiisa noqonayo main verb, asaga laftirkiisa main verb noqonayo oo micnaheedu tahay samayn. asla fan amalina hadda midda koowaad waa auxiliary, waa qaab su'aaleed aan ku weydiinayno. dudan dambana waxay tahay main verbka oo ah micnaheedu tahay samayn. what did we do, maxaan samaynay annaga. what did we do, maxaan samaynay annaga. waa fahanteen fila. Number 8, how did the farmer blow the fields. how did the farmer blow the fields. ereygan blow waa aqrinaysaa blow. marka how sidee, how faahfaahin lagaga baahan yahay qaabkee waa sharxaysaa. how did the farmer blow the fields. sidee ayuu ninkii beeralayda ahaa u falay beeraha. sidee ayuu ninkii beeralayda ahaa u falay beeraha. okay, did waa auxiliary verb oo past ah. marka maadaama auxiliary verb oo past ahaa, farmer wuxuu noqonayaa subjectiga, blow wuxuu noqonayaa v1 ama main verbka. okay, oo ka hadlayo fal hadda taagan. fields ma beero ama dhul iska furan, adiga dhul iska beero ah, beer ahaan loo isticmaali karo, ama dhul iska furan oo sidii la doono loo isticmaali karo. how did the farmer blow the fields. sidee ayuu ninkii beeralayda ahaa u falay beeraha. Number 9, who did he meet with. who macnaheedu waxay tahay kuma qofkee. who did he meet with, yuu la kulmay asaga. who did he meet with. did waa auxiliary verb, waa su'aal. ereygan did iyo do waxaa su'aalaha ahaan oo isticmaalnaa markaa weydiinayno oo markaan ka hadlayno fal tagay. okay, marka meet waa v1 ama main verb oo ah fal hadda taagan. who did he meet with, yuu la kulmay asaga. mideeni tobanaad ee ugu dambeysa waxayna leedahay did she put the keys on the table. did she put the keys on the table. furayaasha miiska miyay saartay iyada. furayaasha miiska miyay saartay iyada. marka she waa subject oo macnaheedu tahay iyada. put oo waa saarid ama kuridid, waa main verbka ama v1. keys waa furayaal. keys, key kaligiis waa fure, keys furayaal, table na waa miis. did she put the keys on the table. furayaasha miiska miyay saartay iyada. marka did waa auxiliary verb oo main verbka ama v1 wuxuu noqonayaa put. marka su-aashan jawaabteeda waxay ahaanaysaa haddii lagu dhaho did she put the keys on the table. saasoo sheegay jawaabteedu waa yes or no. waxaa leedahay yes she did, or no she did not ama she didn't. waxaa fila inaa fahanteen. cashirkeeni maanta intaas nagu ekaanaya. intiinan ku kulmeyno cashirka xiga, waxaan idinkaga tegay khayr iyo baraari barwaaqo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.